بسم الله الرحمن الرحيم أن ريال أن مرعي ومحمد صلاح أن وحن ربا إن كان إن شاء الله كبلا بدونه برنامجيو أنا قلت لك علي والدين الصومالي ذا برنامج ذا وحن ربعي وعي الصومالي أما إنجليز awareness أن والدك الصومالي أدو ذلك سأكتين they working hard mainly dumar baan anigu muddo waxaan ka shaqeynaya secondary schools u dadaalayaan carruurta soomaalida iskooladana caruuraha ugu fiican tobanka ugu fiican badanaaba 3 baan ku leenahay maasha allah laakiin waxaa jirta waxaan ii soo baxda waxyaabo badan oo la rabo in la isku u baahan in la iswaafajiyo kow dhowr topic baan rabaa insha allah inaan muxuu ahaa soo bandhigo topicyadaan rabaa maanta inaan marka introduction idinku sameeyo again magacay waa maxamed saalax magaalada Leicester topicyadaan raba inaan ka hadlo waxaa ka mid ah number 1 Soomaalidu Yurub waxay u yimaadeen inay wax ka bartaan ama carruurtooda wax uga bartaan waliba waddanka UK iyagoo ka soo guuray guryo qurux badan wadamada Scandinavian-ka hawshaas where are we soo jabtar topic kale waxa weeye u baahan laga hadlo carruuraha Soomaalida dhigtay iskuulada waa inay waalidku jeclaan lahaayeen cunugay dhaleen inuu top set yahay laakiin war ma u hayaan mise waxay u malayaan sidii Soomaaliya in setku hal xab wal group yahayo la dhaco ama la baaso topic kale waxa weeye ilmaha Soomaalida dhaqaale xumada iskuulada ku haysta waa arrin runtii qulubtiina taaban doonta taas qodob kale waxa weeyaan rabaa inaan ka hadlo tuushinada faralka laga dhigay oo ay leeyihiin hooyooyinka Soomaalidu haddana tuushinkiin cunugaygu magaranaysaa hooyo fiican mi ama ay ku leeyihiin 4 maalin baa guriga u jooga wasaash marka waxa weeye tuushinka cunuga maxaa u geenaysaa yaa kula taliyay muxuu bartaa syllabuskiisi ma yahay levelkii loogu talagalayna ma yahay halkaasna topic kale wuxuu yahay muhiimka ah studentiga waxaa la yidhaahdaa waa qofka wax soo barta waxna sii barta waa 50-50 innagu carruurteenna waa aragtay school bankeyna way sii socdaan waa soo socdaan way sii socdaan waa soo socdaan school tuition malxamada waxbarashada aaway waa topic kale very important topic kale waxa weeye carruurta Soomaalida secondary ka baxaya waa 16 plus ka 3 baan u qaybiyay group A group B group C saddex group ka hadli doona group kasta meeshay ku socdaan meeqa u gaarayaan waxaan rajaynayaa waxaan ogaadaa waalidka Soomaalida information buu baahan yahay waxaan kaloo ka hadli doonaa waalidkan Soomaalida 30 sano alaabtu u xiran tahay oo la bari baan Soomaaliya ku noqon doonaa ruurtoodina banaanka taagan yihiin oo leeyihiin systemyadan ha gelinina inaga systemkeeni ma aha 30 sano ka bacdi maxaa dhacay arrinta muhiim ah warma soconay maxaan opportunity uga faa'iideysan weynay point kale oo muhiimka oo alla intentionally unintentionally inagu aan ku talagelin qaladaadka ka dhaca waalidka Soomaalida oo ah cunug top set ah year 9 top set oo year 10 noqon doona top set oo year 11 noqon doona top set oo A keeni kara ama grade 9 keeni kara ayaa barqa cad la dhaqaajinaya
Gallery, we don't know. Good intention haddaan idhaahno wanaag u rajayno waxaan leenahay luqadii soomaaliga soo baranaya culturekiisa soo baranaya diintu soo baranaya laakiin waxaa dhacaysa 2 sano maqan yahay wadamadu ka tegey buug lala qaadin 2 sano ka bacdi baa lasoo celinayaa dhammaadka yarteen baa lasoo celinayaa ama bilowga yar inan baa lasoo celinayaa ilmaha saxagu imtixaanka muxuu keeni doonaa yaase mas-uuliyadda iskale waxaan kaloo ka hadli doonaa insha allah xiliyadan lockdownka lagu jiro la fadhiyo inay yihiin xiliyo muhiim ah oo ay tahay waalidka soomaalida iyo carruurtooda inay isbartaan waxaa kaloo arrin laga hadla u baahan oo keligii aanan ku filayn carruurteenu luqadeena kuma hadlan at same time inagaa soo korinay are you Somali? Yes. Do you speak Somali? No. Arrintaas waxay keentay mar baan ka hadli doonaa insha allah identityga iyo cultureka jiritaankaaga inaad Soomaali tahay Islaam tahay wuxuu ku xiran yahay dhaqankaaga iyo diintaada tolina barnaamijyada marka insha allah waxaan rabaa inaan soo bandhigo qayb aan sheegay insha allah maxaa ku khasbay waa su'aal waxaan kaloo ka hadli doonaa reportka suu muhiimka u yahay iskoolada laga soo diro iyo parent eveningka shirarka iskoolada muhiimka u yihiin ilmahaaga waxbarashadooda waxaa kaloo ka hadli doonaa ilmahaaga qalbigiisa iyo maskaxdiisa furayaashooda inaad meel ka og tahay haddii kale qola kala baadanayo marka arrimahan aniga barnaamijyadan aan ka qayb galaa teleconferenciya waxaan igula taliyey warka teleconferencigu waa hadal la yiri please no duub oo no duub codsi ka yimi waalidka soomaalida oo ay dumarku badan yihiin ragna ku jiraan muddan ka caga jiida inaan telefishinadan war soo geliyo sano kale ah arta muhiim Allah motivation iyo hobby waxna waa wax kugu bilaabay inaad wax samayso waxna waa wax kugu haya hataad ku dhex jirin lahaydeen iskuullada iyo soomaalida wax badan baa duubi lahaydeen dadka ku dhex jira weliba inay duubaanna wey aad bay iga codsadeen waalidiin badan oo soomaaliya inaan barnaamijyadan qabto qaybtaan hadda insha allah marka waxa weeye barnaamijyadan magacooda wacyi baan u bixiya ama awareness insha allah waan markaan kan waa introduction qaybtan imka waxaan rabaa ka bacdi inaan qaybo u dhigo inaan idinla wadaago soomaalida soo hartay waxaa dhici karta inaad tiraahdo war adigu Leicester baad joogtaa high school baad joogtaa how do you know inaa generalization Somali baa tiri waxaa la yidhaahdaa xisaabta 2n plus 1 waa odd number 2n plus 1 is an odd number ama tracking C in Somali n square is a square number tiro laba jibaaran Somalida joogto wherever in the world don't know Somalia we are one family guriga London ku yaal iyo kan Mareykan ku yaal iyo kan Minnesota you tell me the same house same family sidaa daraadeed waxaan rajaynaya insha allah barnaamijyada markay gaar waxaan kaloo rajaynaya insha allah dadka soomaalida aqoon-yahanada ah oo aniga wax badan iga badiya inay contribution ka bixiyaan arrimahan ugu hadda horena waa looga hadlay waan laga hadli doonaa insha allah marka markaan balaa barnaamijyadaasna waxaan idinka rajaynayaa inaad insha allah aad ila socodsiisaan waxyaabahan I have to improve idinkana waxaa laga yaabaa inay idinku dhiirigeliso inaad wax ku dartaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته